waxaad ka ogtahay saaxiib jacaylka cusub ee Sundus Saacid iyo Dayax kaasi oo muddooyinka ugu dambeeyay aad loo hadalhayay. Sundus waxay jeceshahay Diraac mise waxay jeceshahay Dayax, taasi oo maanta soo bandhigtay. Saaxiib lasoo waxaan marka hore ka codsanayaa please haddii aad jalanka ku cusub tahay oo hadda marka hore la joogin fadlan jalanka subscribe saar siina share garee barteena YouTube kana subscribe noogu samee. walaal waad mahadsan tahay dhammaantiin dhiirigelin ayay noo tahay subscribe-tiinu iyo horumar meeshaan eegsanaha gaadhay. sidoo kale lecture waxay noo tahay inay dad badan oo saaxiibo si wanaagsan ay sii gaadhsiiso muuqaalkeena. saaxiib yaal hadba waxaan idin haynaa war dhammaystiran ama sheeko dhammaystiran. Sundus Saacid oo ahayd gabadh youtuberad ah ama markii hore aan idhaahday Diraac la jiri jirtay YouTube-kiisa kala soo dhex muuqan jirtay ayaa ugu dambeyntii waxa ay shaacisay inay jeceshahay Dayax oo ah wiil hay dhawaan isbarteen amba YouTuber han dhahda reer Hargeysa ah, balse Diraac ayaa markii hore lagu aanin jiray amba mooday inay jeceshahay oo jacayl u dhabo hayso. balse ugu dambeyn waxay tahay Diraac mar rabo waan dili lahaa ee waxaan dooran lahaa Dayax kaasi oo jecelahay. waxaan leenahay saaxiib Sundus iyo Diraac hambalyo idinku reer saaxiib yeel hambalyeeya in Dayax iyo Sundus waqti badan ayay soo wada qaateen. dadka inta ugu badan waxay aaminsanaayeen amba u yaqiinayeen lamaanihii qarniga, waxayna moodayeen laba qof oo isjecel, balse ugu dambeyntii waxay cadeysay inay jeceshahay Dayax. halkan kuma soo darin sawiradiisa wax muuqaalisa sababtoo ah iyadba ma aysan ku soo darin oo waxay u reebatay amba waxay u soo bandhigi weeday jacayl ay u qabtay darteed. wiilkan ayaa wareysay YouTuber laha wax muuqaal ay cod kama soo qaadan sababtoo ah codka nooga iyada awgeed. markaas kadib waxaan sameynay inaan jacaylkeeda u soo bandhigno si wadara ama soo qaadano muuqaal ay duubtay iyo sawir ay duubtay, balse wax cod ay leedahay halkan kuma soo darin. waan idin raali gelinaynaa saaxiibayaal sida oo ogtaheen waxa ama ogeydeenba Dayax wuxuu ka ambabaxay Hargeysa isagoo uu ka xatimay dhinacaas iyo gobolada Galmudug iyo Puntland, waxaana in muddo ah ku sameeyay dhinacaas halkaas oo dadka inta u badan ay aaminsanayeen inuu jalankiisa ku soo kala kicinaya YouTube-kiisa markii uu maray Muqdisho tagay, balse in arrintu ma aysan noqon. ugu dambeyntii waa isbedeshay, waxaana aan ogaanay amba ugu dambeyntii soo gaartay inay Sundus iyo isjecel yihiin Diraac, taasi oo noqotay mid tahay dad badani in filanayeen waqtigan haddana ay soo si fiican soo sheegtay. Sundus iyo Diraac ayaa Dayax dhaaftay ayaa waqti badan wada qaadanayay iyagoo jawdkan hoose ku wada caaweynaya, iyagoo biyo cagaha kula jira, iyagoo wala faraxsan, iyagoo wala qoslaya. ugu dambeyntiina markii ay soo kala tageen Dayax soo tagay waa uu ooyayba Sundus oo indhaha ay ilinka keentay, balse waa kuwan xataa mararka qaar waxay wala marayeen meelo jawdigan oo run ahaantii had dareemayso inay lamaan isjecel yihiin. dhinaca kale markaad eegtana waba isla egyihiin baan isdhiwaanagu iyo waxa wadada la isku tala galay kababoy waa mid kale oo ina cajiib ah, balse Sundus waxa la isweydiinayaa maxay Dayax ku aragtay oo Diraac oo ahaa jacaylkeedii hore ay u deysay, maxay Sundus ka dooratay Dayax iyo Diraac marka la eego xagga muuqaal ahaanta. inkastoo uu dooqo adna cajiib yahay Diraac ayaaba aad u qurux badan, balse in haddana oran mayno maxay Dayax u dooratay oo Diraac u diiday sababtoo ah waa calafku meesha uu ku jiro cidna ma oolin karto. balse saaxiibayaal idinku aragtiina comment-ka noogu reeba, waxaan u soo hambalyeynaa dhammaantiin niga codsan u hambalyeysaan Sundus iyo Dayax oo ahaa lamaane muddo badan amba muddo aan idhaahday sanadkii 20 dhamaadkiisii ama qaybisii dambe isbartay. muddadaas intii ka dambeysana ahaa laba qof oo isjecel, habeenka xataa markay seexanayaan isku ooya in waqti badan wada qaata. sidoo kale waxa isaguna reaction ka bixinayay hal abuur cawil oo halkan ku jiray in haddoohan xataa ha dhibsado inaan magaciisa soo qaadana hayga raali noqdo. waxaan ka raali gelinayaa saaxiibayaal in Sundus Saacid iyo Dayax waxay ahaayeen Diraacan idhaahday waxay ahaayeen lamaan waqti badan soo wada qaatay ama dadku ay moodi jireen lama leeyin, balse Diraac ayaa sarta ka boodayo waxa uu helay Salma oo ahayd gabadh iyadu ka soo jeeda amba in aan idhaahday muddooyinka ugu dambeysay tagneed Ariga iyo Australia. halkaas ayay ka imatay kadibna waxay imatay xagan markay imatay magaalada Gaalkacyo waxay isbarteen isla Diraac oo ka doorsaday Salma inuu guursado Sundus waxa uu iskaga baxay Sundus kadibna waxa uu guursaday sidaan ognahay wuxuu guursaday Salma jacayl aan baxo jacayladay oo jacayl soo bandhigay. markaas Sundusna waxay bedelkiisa iyadoo midimi tukata ka dhagaysa ama jacaylkiisa uga tagaysa waxay jacayl laba u sheegatay isla Dayax oo ahaa wiil Hargeysa ka soo jeeda
basana muddooyinku dambeeyay hawla YouTube u joogay dhinacaas in han ilaaday galmudug marka saaxiib muuqaalka leeg saar si share gareeya waan mahadsantiin